bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhageystayaal ama daawadayaal kusoo dhawaada janalkayga arrimaha haweenka aad mar walba uga barateen sheekooyin ama qisooyin jaceyl oo dhab ah. asxaabta waxaan idiin hayaa maanta sheeko yar oo gaaban oo xambaarsan qiso dhab ah. mucaashaqiin isguursaday 20 sano kadib ma guursan lahayd jaceylkaagii hore. sheekadeena intaas ayay ku saabsan tahay. marka laga hadlaayo dhinaca lamaanayaasha jaceylku waa dareen dhab ah uu qof u qaado ruux kale kaasoo uu doonayo inuu la wadaago nolosha isagoo aan ku qancaynin cid kale oo bedesha. waana mid si isku mid ah u haleela rag iyo dumarba inkastoo uu badanaa ku hormara labada qof midkood. mid ka mid ah sheekooyinka xiisaha badan ee la xiriira jaceylka dhabta ayaa ku saabsan abwaan Soomaaliyeed oo waqti dheer jeclaa gabar uu calmaday. inta aan u gudagelin sheekada waa kuma qofka ay qusayso. abwaan Axmed Suleymaan Bide wuxuu in ka badan 60 sano ku soo biiray fanka Soomaaliyeed waana shaqsi ay aad u yaqaanaan dadka ehlu suugaanta ah dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed. waxaa lagu xasuustaa riwaayadii uu ku caanbaxay ee la oran jiray alla aamin ma iisho taasoo soo baxday horaantii sanadkii 1964 wuxuuna sidoo kale sameeyay ku dhawaad 40 riwaayadood iyo heeso fara badan. qisadii abwaanka oo hadda ku sugan magaalada Hargeysa wuxuu leeyahay taariikh jaceyl oo dhab ah aadna u xiiso badan. wuxuu guursaday gabar uu jeclaa muddo 22 sano ka hor. in ka badan kamid ah heesihiisa wuxuu ku cabiray jaceylkiisa asagoo ka sheekeeyay qisadiisa asagoo sharaxaad ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa oo la soo maray jaceylkiisa. wuxuu yiri heesahayga dadku waxay ugu jecel yihiin midda uu qaaday Allah u naxariistay Maxamed Axmed Kuluc taasoo aan u qaaday gabadh aan jeclaa waxaana guursaday 22 sano kadib. wuxuu yiri heestaasi uu abwaanka ku amaanayay gabadha jaceylkiisana ugu sheeganayay ayay qaar kamid ah erayadeedu ahaayeen sida soo socoto. sida geed caleen liyo ubax guudka qariyaan oo gooni laamaha midba geeskeed hoobaan isgaadhiyo guntin iyo miro leedahay oo soo gandoodo galka faraqa soo daray godan barwaaqa ah durdur aan go'eyniyo gacabobi ku yaalaan oo ugu iyo jiilaal midab guurin baa tahay gabadhay kalgacalba goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxa aanan garanayn igunaday caashaqa halka aad gaadhsin. laakiin gabadhii ayuu sheegay inay nin kala guursatay arintaas oo aad uga hinaasay abwaanka. gabadha iyadoo aan heshiinay oo aan aad isku jecleen oo aan ahayn walaalo isjecel guurna ku heshiinay ayuu nasiibkana kala geeyay. waxa aan la shaqeynayay Maxamed Aadan Dacar oo aan guurkiisa kala shaqeynayay 2 cisho ayaan ku mashquulay. markii aan soo laabtayna waxaan u imid iyadoo gabadhii la guursaday. maxaa luray naftaadii hinaaso awgiis ayuu abwaanka u sameeyay hees la magac baxday maxaa luray naftaadii oo ay ku luuqeynaysay fanaanada Hiba Nuura. waxayna qaybo kamid ah miraheedu ahaayeen sida tan annagoo lamaana iyo 2 naf qaybsi ah talageed ku laashee adiga islumiyo isu looga cadawge libintaada siiye waase adiga liitee leexadu ku sidatee hadballan cuskanaye liibaanta dunida ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii. muddo kadib abwaan Axmed Suleymaan Bide wuxuu calaf u yeeshay inuu guursado gabadhii uu jeclaa 22 sano kadib. waa marwo wanaagsan ayuu yiri haddana waan wada joognaa. waxaan guursaday 3 sano kadib markii ninkeedii laga dilay ayuu yiri waraysigii uu siiyay BBC-da. qisada abwaanka ayaa kamid ah qisooyin jaceyl oo fanka Soomaaliyeed lagu xusay kuwaasoo marka laga soo tago qisooyinka riwaayadaha iyo sidoo kale kuwa kale oo dhab ah oo dunida ka dhaca ama Soomaaliya ka dhaca. waad mahadsantiin asxaabta sheekadeeni intaas ayaan ku soo gabagabeeyay waa anigoo